madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhambaal hambaliyaa u diray shacabka kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland munaasabada xuska sanad guurada 27aad ee ka soo wareegtay 18 May awgeed oo maalinta bariya looga dabaaldegi doono guud ahaan Soomaaliland waxaanu madaxweyne Biixi uu sheegay 27 sano ee jirtay Soomaaliland waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha dhiman ee aan wali u qabsoomin dhammaan ummadda Soomaaliland meel joogto gudaha dibadba waxaan ku hambaliyanayaa 27 guurada soo noqoshada xorriyadda Soomaaliland oo ku beegnad 1991 May Burco laga dhawaaqay 27 sano bay Soomaaliland jirtay ilaahay baa mahad leh way kortay way xoogaysatay way adkaatay way muruqaysatay dhinac walba xagga baseelka siyaasadda horumarka dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha oo kobcay in badan bay hana qaaday wax badanna waa u qabiyo tira adduunku waa tira sagaalada ma toonoobo mar walba waxba dhiman bini aadmigana waxa uu noolay inuu qabyadaas mar walba gufeeyay intuu kari karo marka in badan baynu qabsanay in badan waa inoo hadhay insha Allah taabkana waa inoo doonaa dalkeena horumara dadkeena isticlaada barwaaqo inuu gaadhamo Ilaahay ka rajeenayaa waxaanu ducaynaa dadkii ku shahiiday soo noqoshada go'nimada kuwii dalka dhismihiisa ku shahiiday kuwii iyagoo talinaya dayaca iyo xanuun u dhintay iyo dhammaanba waxay mas'uuliyadana loo naxariisto dhalinyarada daayirta waxaan kula dardaarmayaa inay dalkooda u tabcaan oo wixii ka dhiman sidii loo dhisi lahaa oo ka mid tahay horumarka dhaqaalaha nabadkooda noloshaha isdhexgalka iskaashiga iyo aragtida fog oo laga madaysanaado hawlaha inoo yaala waxa kamid ah ictiraafkii oo wali aynaan gaarin waxa kamid ah dhaqaalihi halkan doonina aan gaarin waxa kamid ah dadkeena oo abaaro badan tabaaleeyeen oo in badan dayacan tahay ama xoolo ka baxeen oo u baahan yihiin dhaqaale waxa kamid ah caafimaadkeena oo wali diyaarada loo raaco cudurro yar yar oo halkan lagu daweyn karo waxa kamid ah jaamacadaheena oo la tayeeyo oo gaara ilaa heer dadku ay kuweena soo doontaan hawlahaas oo dhan baa loo dhiban waxaan rajeynayaa Ilaahay idinka mustaqbalkeenu gaarno daayirta soo korisay kuwa jooga waxay haystaan dalkoodii oo hore ay ka taliyaan inay wanaajiyaan ictiraaf walaan dhisaan boo hore oo aanu ku dhicin taraxumo kale iyo dagaal dambiye ciil dambe madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu fariin u diray dawladda Soomaaliya adduunku waa wada midoobaya oo dad baa yiraahdo waxa tihiin infisaaliyiin oo Soomaaliya ka go'aysan Soomaali midooda annaga horseednay awoodayaasha iyo abayaasha u dhintay hargeysa laga asaashay Soomaaliyeed Soomaali jacayl iyo Islaam jacayl kooban ka nahay laakiin waxa weeyday Soomaali isku imanaysa iyadoo oo wada tashata oo say qaran ahayd oo laba guri laba dawladood isqadarisa deegaan isu qadarisa qof isu qadarisa dawlad isu qadarisa oo soo baysan karta wiilasha xamar maqla oo waa muqaddas midnimadu iyo waxay Soomaaliga go'aya wixii ay geysateen iyo waxa dumiseen iyo tarxumaanta maanta ay ku jirtaan iyo tagudiina taala in arkayadina marmay dilanidu ma dhammaan dadka waxaan ugu baaqayaa inay dawladooda ilaashadaan dadka iyo dawladaha dariska kula noolaadaan nabad caalamka oo dhan kula noolaadaan nabad iyo wanaag nimanka Soomaaliyeed ee muqdisho looga taliyo waxaan waxaan ugu baaqaynaa walaaltinimo wada noolaansho isqadarin iyo isxurmeyn laba dawladood walaalaha Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa